qaadan doonaa dhacdo nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inakoo isku dayi doona inaynu 10 ama 2 ka barano haddii alla yidhaahdo. waa taa ujeedada qisooyinka loo dhageystaa, ma aha wax lagu raaxaysto kaliya, laakiin waa usluub dadka loogu soo gudbiyo in laga dhaadhiciyo mabaadi waaweyn. maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago xadiis kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyo odhanaya macnihiisa guudun baan insha Allah idinla wadaagayaa. wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam in nin uu maaragtay intuu habeen kacay ayaa wuxuu wallaahi waxaan sadaqan maanta baxsanaya, inuu wax sadaqaysto doonayay, deedna wuxuu sadaqaysan doona. deedna wuu baxay, markuu baxay uu maaragtay qof miskiina raadiyay ayaa qofkii ka soo horbaxay. maalin habeenkii hore wuxuu noqday mid oo wuxuu noqday tuug ah. marka nin tuuga ayuu lacagtii sadaqadii uu bixinayay siiyey. aroortii markii maaragtay dee la soo toosay ayay dadkii ka sheekaysteen arrinkiio waxaa laga yaabaa inuu ninkan odaygeeda lacagta la siiyey uba ka hadlo dadkii gaarsiiyo yidhi war nin saasa xalay baa igu dhacdayo markaa oo de nin baa sadaqadii siiyey isagoo tuuga moogtay. markaa ninkii wuxuu ilaahay ugu mahadnaqay wixii uu baxsaday. waxaan yidhi insha Allah beritoole waxaan raadsan doonaa qof kaloon sadaqad siiyo. habeenkii kalu markaa baxay, wuxuu raadsaday inuu sadaqadii bixiyo. maalintii labaadna wuxuu siiyey sadaqadii qof dumara oo ah dadka dumarka jirkooda maaragtay ka baaca mushtara. markaa markuu arrintii bixiyey haddana maalintii dambe arrintii laga sheekaysto waxa warnihayde ninbaa wuxuu lacag u baxsanayaa wuxuu siiyey gabadh noocaas oo ah dadkaan dee yacni dembiyada macaasida intaa leegaan idin soo sheegay sameeya. markii saddexaad ayaa waxaa dhacday in maalintii dee ninkii yidhi alxamdulilah ilaahay buu mahadnaqay, wuxuu yidhi waanan baxsan doonaa, sadaqad baan baxsan doonaa. deedna maalintii dambe ayuu kacay, wuxuu yacni doonay inuu sadaqad baxsado. habeenkii markuu socday wuxuu siiyey maalintii dambena sadaqadii qof taajir oo aan uba baahnayn oo nin lacag lah. markii dee aroortiiba haddana sidii looga sheekaysto waxaa yidhi nin baa sadaqad baxsadayo qof lacag le buu siiyey sadaqadii. marka waxay ujeedaan waxa weeyaan dadku waxay dareensan yihiin dadkan sadaqada la siinay dad istaahila inaan ahayn, mid tuuga, mid sinaysta, mid maxaa la yidhaahdaa taajira. sida caadigana waxaa laga yaabaa inaanu qofku lacagtiisa hadduu garanayo dadka noocaasa aanu siin lahayn. marka waxaa dhacday ninkii ilaahay subxaana watacaala waxay markaa culimada taxaadiista fasirtaa waxay sheegaan dee inuu riyo kale loogu soo waxyooday. riyada maaragtay markuu qofku riyoodo, riyadu mararka qaarkood yacni waxa weeyaan waa bushaaro qofka muslimka ay bushaarowta markuu khaasatan wax wanaagsan arko. markaa ninkii wuxuu ku arkay riyadii arrin baa loo sheegay, waxaa lagu yidhi waxaa laga yaabaa kan maaragtay ugu horeeyaad siisay tuuga ah waxaa laga yaabaa markaad lacagtaa yar siiso in waxa tuuganimada u geynayayba ahayd inaanu waxba haysan. waxaaba laga yaabaa inuu tuuganimadaba iskaga baxo oo maanta kadib uu tuuganimada faraha ka qaado. gabadhan xumaanta sameynaysana waxaaba laga yaabaa lacagta aad siisay inay ku toobad keento intay wixii ay sameyn jirtay baaca mushtarka yacni jirkeeda ay baaca mushtarka yacni ay iibin jirtay waxaa laga yaabaa inaabay faraha ka qaado ay markaa ay ka toobad keento. kan maxaa la yidhaahdaa taajirka ee waxaystana waxaaba laga yaabaa inuu qiiroodo, intuu qiiroodo yidhaahdo wareedhe dadka kaleba sadaqad bay baxsadaan, adiga maxaa sidan kaa dhigay bakhaylka. deedna waxaa laga yaabaaba inuu isaguna maxay uba noqdo nin yacni lacagtiisa wax ka bixiya inuu noqdo. marka arrinkii horta uu nabigu inooga sheekayay sallallahu alayhi wasallam macnaha guud ee qisadu intaasu ku wareegaya. maxaase laga baranaya? waxaa laga baranaya qofku markuu wanaag sameynayo wanaagga inaanu yacni isagu sameeyo. waqul icmaluu bilayli fasayara allahu camalakum warasuuluh waalmu'minuun. ilaahay subxana wataala wuxuu idinku shaqeeya, ilaahay subxana watacaala camalkiina wuu arkaya, rasuulkiisuna wuu arkaya sallallahu alayhi wasallam wuu ogyahay. ummaduna way arkaysaa mu'miniinta. idinku wax qabta, wanaag qabta, yacni meeshaad wanaagga dhigaysaan mararka qaarkood way fiicantay in la eego, laakiin wax kastaba ha fiiqina. waa halkan ay ninkan wax lagu abaalmariyey
waa ikhlaasnimadiisii in wax kastuu bixiyena isaga sadaqadii way u qoran tahay way markuu soo baxayo aqalkiisa ka soo baxay wuxuu ku soo baxay inuu wax wanaagsan sameeyo wuxuu ku soo baxay in dadka masaakiinta wax siiyo wuxuu ku soo baxay inuu wanaag sameeyo saadaradeed markuu aqalkiisa ka soo baxay niyada fiican buu leeyimid saadarteed wuxuu sameeyay wanaag waxaan la aragtaa in kastoo dadka kale aanay ula muuqanin wuxuu sameeyay de wax fiican ahay oo de qof tuuga inaad lacag siiso ama qof xumaan sameyn inaad lacag siiso ama qof isagoo marka hore sadaqadan u baahan inaad lacagtii siiso ودنا لعقتي أدسيسو وحدهم ضدك بدون كود وحي وأركان إننا الصحة هين أنا وح ونعكسان هين لكن حكموينك أو حدث كي ممكن نوشيء وحنا كفهن إن أي وحيابك هو وين بأي أي سامين كرتاس ودقف عمك وحنا أركنا لقي أبو إن ضدك كاركود صوت أي قرادات قوسمية خاصة ضدك توك توكا وحلاقي أبو حبايب توك لماذا أقول عن inay qaarkood tahay baahi dhibaato haysata waxa laga yaabaa hadii la hagaajin lahaa oo dadka lacagta la inta ay u tagaan kuwa ay lacagtooda wax ka siin lahaayeen oo laga yaabaa hadii shaqo loo sameyn lahaa waxa laga yaabaa in waxba faraha ka qaadi lahaa kuwa kale xumaanta sameynaya zinada iyo waxa la mid ah sameynaya waxa laga yaabaa qaarkood inay waxan waxa u geeyay markii hore ahaydba wax yaani aan yaani de adduuniyo hunguriyo inuu geeyay laakiin baahi xumigiisa waxa laga yaabaa marka wax la siiyo inaba xumaantan ay faraha ka bixi lahaayeen insha Allah marka waxaan doonaynaa inaynu raahno dadku ma garanayno maxaa la yiraahdaa waxaan wanaagiinu sameynayno yani aad ugu fiirfiirsan laakiin wanaagiinu sameynayna hadii Allah yiraahdo aynu isku dayno inaynu dadka aynu wanaag gaarsiino wax wanaagsan qabsano waxana muhiim waxaanu sameynayno inaynu niyad fiican hadii Allah yiraahdo inaynu niyad fiican aynu ku sameyno way xadiiskan wuxuu aad inoo tusay qadiyada ikhlaaska iyo inuu qofku wuxuu sameeyay ilaahay dartii u sameeyo inuu taa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku aqbalo xadiiska sahih nabi alayhi salatu laga soo wariyay wuxuu inama al-a'mal bin-niyyat wa inama likulli imri'in ma nawa marata ufirso wax kasta waa niyada ilaahay wax kastana qof kastana waxa aakhira lagu abaal mariya wuxuu niyeystay sadarteed markaynu insha Allah yani mararka qaarkood inaga joojin wanaagaynu sameynayna armaanaynu meeshii fiicneed digina yani inaga joojintaasi wixii wanaagaynu aad iyo aad ugu dadaalo khaasatan waxyaabaha caawinta dadka baahan insha Allah inuu caawinayno insha Allah waa inta maanta barnaamijkeenu insha Allah waxaan rajeynaynaa inuu wuxuu ka faa'iideysanahay hadii la yiraahdo xikmooyinka nabiga alayhi salaatu wasalaam ina barayo intaynu mar kale iyo waqti kale insha Allah isku soo noqon doono dhammaantiin meel kasta joogtaan mar kale idin salaamaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh